xoghaye ku-xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka xisbiga mucaaradka ah wadani Maxamed Cali Cabdi ayaa ka deeriyay xaaladda wadooyinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isagoo baaqu diray bulshada magaalada Hargeysa iyo ganacsatada taas oo uu sheegay inay iskood u dhistaan sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada isagoo tilmaamay inay doortaan dad u shaqeeya waxay ku kalifayaan maanta hadlo dayac badan ee caasimadda Hargeysa ka muuqda dadku waxay aad iyo aad ugu caabanayaan wada xumo maanta waxaan doonayaa inaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan mid ilaahdo wata koowaad shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaan waxaan doonayaa maanta inaan codsi baaq u diro waxayna doonaynaa kii waxay noo qabanaya ee aqoon waayo-aragnimo iyo kalti leh waxa ku tusaale qaatan caasimadda Hargeysa iska daa gaadiidkii wadooyinka marayay waxa khaatiyaan iyo dhibaato taagan dadkii loogeynayay ee wadada socday ayaa wada xumo awgeed wadooyinkii socon lahaa oo dhibaato soo gaadhay dhammaan wadooyinka Hargeysa dhammaan tirkoobay adiga hadda dhex socotay 2 saacadood ayay kugu qaadanaysaa waxaan doonaynaa maanta siimana shacbiga ku nool magaalada caasimadda Hargeysa inay maanta dooltaan xidhibaan golaha deegaanka kuwii maanta caasimaddeena Hargeysa u ekeysiin lahaa caasimadaha adduunka dawladdu cashuur bay qaadaa gaadiidka cashuur baa la ka qaadaa gaadiidka cashuurta la ku qaadaya waddo ay maraan ma haystaan dadkii baa cadiban waxaan kaloo aan aad iyo aad doonayaa inaan ku hadlo waddada ka tagta suuqa tagta xaafadda Daami ilaa Kirilka waxaan doonayaa waddada oo dayacan oo daraxumo badan ka muuqato in la isku tago wayna bulshada iyo ganacsatada dalka waxaan leeyahay war haddii waddada dawladda dhisi kari weyday oo wax ka qaban kari weyday ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaweyn waxaan leeyahay waddadaas way dhiban tahay waddada daraxumo ka muuqata waxaan idigu buurinayaa haddii dawladdii hoose iyo dawladdii dhexe mid awoodi weyday in waddada la dhiso shacbiga iyo ganacsatada waxaan leeyahay waddada suuqa ka tagta ee ilaa Kirilka ee Daami dhaxmarta in la dhiso iminka waddadii Cabaaye muddo badan bay baabaaheed saaka waan soo maray sidii cagafta loo geliyay iminka wax hawl looga socotaa ma jirto dadkiina way cadiban yihiin hargab bay ka qaadeen dad baa ku xanuunsaday oo siiga ka dhacaysa xataa inay ka rusheeyaan oo waddadii biyo lagaga shorosheeyo ay u baahneed waxba la kama qaban marka waxa weeyaan waddadan waxa muhiimad waxa weey waddadaasina muddo badan bay dayacneed waa wadda halbowlaa waa waddada isku xidha magaalada batankeeda iyo boqoryo ka taga waa wadda aad u muhiim ah waxaan leeyahay maayka magaalada waa in sida ugu dhaqsaha badan waddada loo dadashiyaa waddooyinka ma kala simnaa waddada ka tagta gobolnimo ee boqor ka tagta iyada ma markatiba haddana soo tiriyo waddooyinka waddanku waa saasoo miiran laakiin waxaan doonaynaa maanta gacanta dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland bay gacantooda ku jirtaa waa caasimadii Soomaaliland baad arkaysaa baabaa iyo waddooyinkeedii sida u ekaadeen waa inayna maanta hadduu Ilaahay yiraahdo aan awood saarnaa sidii aan u doolan lahayn rag mudakara inaga inoo shaqeeya laakiinse iyagu ayna shaqeysan muhiimadu waxa weeyaan waa inaga inoo shaqeeyaan laakiinse iyagu ayna shaqeysan waa inaga wax noo qabtaan